golaha guurtida koonfur galbeed Soomaaliya oo doortay guddoon cusub munaasabad xil wareejin oo ka dhacday wasaaradda tamarta iyo biyaha dawladda Soomaaliya reer Buuhoodle oo taageero u muujiyay wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha beelaha heshiis ku gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud magaalada Cadaado oo howlo burburin dhismayaasha sharci darrada ah laga fuliyay eedeysanayaal lagu xukumay deegaanada Puntland shirka argagixisada oo Washington ka furmay iyo wararkii Britain iyo xubintii ciyaaraha ee Kickoff qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba qadar yar oo adeega bulshada kadib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal ku soo dhawaada warkii telefishinka Royal oo idinkaga imaanaya istuudiyaha aanu ku leenahay galbeedka magaalada London magacaygu waa Maxamed Yuusuf Axmed golaha guurtida dawlad goboleedka koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye xigeen sida uu warbixintani ku faahfaahinayo wariyaheena Abshir Mandela oo ku sugan magaalada Baydhabo ayadoo magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyay kulamo ay ku yeelanayeen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo ka wada hadlayay sidii ay u yeelan lahaayeen hoggaan cusub ayaa maanta odayaasha kulankoodii ugu dambeeyay waxa ay ku doorteen hoggaan cusub kulanka odayaasha ay ku dooranayeen hogaamiyaha cusub ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka tirsan wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya waxaana qabashada gudoominimo ee odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya isu soo taagay saddex xubnood oo kala ah Suldaan Buube Cabdalla Buube Malaaq Ibrahim Aliyo Leysamo iyo Malaaq Yuusuf Abdiyo waxaana gudoominimada golaha odayaasha dhaqanka ku guuleystay Suldaan Buube Cabdalla Buube oo codka ugu badan halkaasi ka helay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha doorashada mayntan qoreeyanay xaruntii golaha malaagidi odeyntikiyo soddon iyo afar iyo manaha kooran manaha fadheeti yan odeyti golihin taasoo kaamil sinaay codkii anku horeeyay manaha 20 iyo li malaag Suldaan Buube yaheli malaag Leysamo afar oda heli malaag Yuusuf Abdiyo ma helay sadii heli hal codna manaha halaawi soddon iyo afartii cod saasaka kaamilsanyiin malaag Buube Cabdalla Buube Suldaan Buube yaka guulaysidii saasa manaha wada ogaadee saasa golihii dhongna manaha ogaadee hase yeeshee waxaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeen u sharaxna laba xubnood oo kala ah Malaaq Cabdirashiid Cabdiraxmaan iyo Sheekh Aadan Diiriye waxaana ku guuleystay Malaaq Cabdirashiid sida uu mar kale uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha doorashada 27 Sheekh Aadan ma helay 7 saas daraadatiidii may arday guulaysaday Sheekh Cabdirashiid arday manaha codkii heli taas manaha saasa arday guddoonkiisa saasa ka dhamaadi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaa u sharaxnaa hal xubin oo ah Suldaan Warsame Suldaan Suuley oo isagu aanay jirin cidda tartamaysay ayaa waxaa isna ku guuleystay qabashada gudoomiyaha labaad ee golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa halkaasi sidoo kale lagu doortay afhayaanka golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana loo doortay afhayaan inuu noqdo Malaaq Axmed Yacquub Malaaq Deerow markii ay soo gabagabowday doorashada ayaa halkaasi waxaa ka hambalyeeyay xubnihii markaasi laga guuleystay codka Suldaan Buube Cabdalla Buube helay irikaan helay isku midu walaalkay maylaha oo guuriye shaqafayl alla kooshan waana la shaqeyn ilaahay insha Allah taala أنا قلت له روي مفضل قبل روي ده شقة. قدام بوب الشقة أساسا يوجي إن شاء الله الله ما قبل بدون ما قبل لا روي فدي. أمين الدبل أنو يوكي في نيسالو. نتيجة دي أنت كبتي إيدي إيدا يا كفرح سنة ما دام كبلمي إن أو عط لك شربه أنت الظهرتين إيدا ما حد سنتي ما حد سنين أنت الظهرنا ولا على إيدا ما حد سنين
saas daraadee may oo daacad ah in aan aragtay golahaas daacadan aan ka shaqeeyo sandida gobolka koonfur galbeedna aragtay in si horumar aan ka dadaalo haddii aan walwado waa ilaahayna intiis in ka eebayna yaa ku codsadee haddaan wado waayo walaalagay inaan dhiib ya diyaaranahay ugu dambeyntii ayaa waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya Suldaan Cabdalla Buube kama hadiye waxaana aad u jecelnahay ilaahay la garab qabado xilka culus waxaana aad u jeceliyaa in xilka sidii linka talagalan ku baxo hadii ila uslaadan usoo raalayna miiskan siinsaar wabillahi tawfiiq suldaankan cusub ayaa waxa uu xilka kala wareegay hogaamiyihii hore ee odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Shure Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo xisbiga mucaaridka Somaliland ee UCID ayaa waxa uu ku baaqay in la kala diro golaha wakiilada ee Somaliland iyagoo sheegay in muddadii loogu talagalay ay dhamaatay sida warbixintan inooga soo diray magaalada Hargeysa wariyaheena sidaasina waxa uu gudoomiye ku xigeenku ku sheegay xilli warfideenada kula hadlayay xarunta guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID oo ku leeyahay magaalada Hargeysa isagoo tilmaamay inuu baaqiisan ku wajahan yahay madaxweynaha Somaliland isla markaana ku baaqayo in la kala diro xildhibaanada aqalka golaha wakiilada oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa uu dhamaaday muddo xiloodkoodii loo doortay isagoo arrimahaasi ka hadlaya Ali Maxamed Yuusuf Ali Gurey ayaa waxa uu yiri saatan basashaygu waxa weey in golahan wakiilada ee 10 sanadood fadhiyay haddana sugaya 26 in kor loo kordhiyo haddana oo ay dhowr iyo 10 sanadood fadhiyaan in la kala diro gabi ahaanba oo uu bedelo baarlamaanka cusub ee la soo doortaa waqtigan maxaa lumiyay doorashada ilaa waa kii madaxweynuhu yidhi 26 aniga muddadayda maalin ku darsan maayo waxaan qabaa madaxweynaha inay run ka ahay dad baa u qabaa inay beenti ahay laakiin waxaan qabaa inay run ahay oo uu jeclaa inaanu maalin ku darsan laakiin nasiib darro muxuu maalin keenay in ay ku qabsoomi weydo waxa keenay xeerkii lagu dilay madaxtooyadiisa iyo xukuumadda dhexdiisa mowqifka rasmiga ah ee xisbiga UCID oo ka qabo xaaladan hadda taagan ee siyaasadda horeba anagu cadaynay 26 Juun inaan wax doorasho dhacayn inkasta oo aan madaxweynaha laga hayn xukuumaddiisa laga hayn komishanka laga hayn cid kale oo laga hayaana aanay jirin UCID mooyaane oo dadka u sheegta in doorashada 26 aanay suuragal hayn ay dhacdo maaha markii ugu horeysay ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID oo fariin noocan oo kala u diro shacbiga reer Somaliland iyo xukuumadda isagoo ku baaqay in la kala diro xildhibaanada aqalka golaha wakiilada balse may noqon mid suurta gasha lamana garan kale dhawaaqani waxa uu kaga duwanaan karo dhawaaqyadii hore ay u dirayeen asxaabta mucaaradka ee Somaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa beelawada deegaanka gobolka Galgaduud ayaa waxa ay heshiis ku gaareen shirka dib u heshiisiinta ee ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Cabdulqaadir Salaad oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayadoo wali ay socoto go'aamada ka soo baxaya shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaan gobolada dhexe ayaa maanta waxa mar kale heshiis wada gaaray laba beelood oo ka soo kala jeeda deegaanada Ceelgaras Ceellehle iyo sidoo kale degmada Ceelbur ee gobolka Galgaduud waxaana heshiiskooda goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Galgaduud xildhibaano ka socda dawladda federaalka Soomaaliya golaha guurtida gobolada dhexe iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Dhuusamareeb go'aankii ka soo baxay labada beelood oo heshiiyay waxa goobta ka akhriyay Cabdullaahi Cabdi Kulmiye oo kamid ah ergada ku sugan halkaasi kana tirsan beelaha heshiiyay labada beelood waxay ku heshiiyeen inay iscafiyaan isla markaasna wixii hara oo dhameystir ah u daayaan maamulka dawladeed ee iman doona dhawaanahan soo socda haddii alla idmo labo in labada beelood ay iska kaashadaan ilaalinta nabadda iyo ku wada noolaanshaha deegaanada ay wada degaan saddex labada beelood waxay si buuxda ugu heshiiyeen inay wax walba ka hormariyaan tixgelinta dib u heshiisiinta iyo dhismaha maamul u samaynta labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud waxay sidoo kale labada beelood ku heshiiyeen inay xaq dhowraan xiriirka walaaltinimo ee kala dhaxeeya beelaha la deegaanka gobolada dhexe shan waxay beelaha mursada iyo dudubyo ugu baaqayaan dhammaan
jaaliyadaha qurba joogta shacabka labada beelood iyo beelaha kale ee ku nool gobollada dhexe inay iscafiyaan isu tanaasulaan isla markaasna ay gacan ka geystaan guulaysiga gogosha nabadeed ee ka fidsan magaalo madaxda gobolka galgaduud ee dhuusmareeb wallahu calaa maa naqul wakiil waad mahadsantihiin sidoo kale waxaa iyana si wadajira u hadlay waxgaradka iyo ugaasyada matalayay labada beelood ugaas axmed ugaas faarax iyo sidoo kale salaad axmed caynte oo ka kala tirsan waxgaradka iyo ugaasyada labada beelood ayaa iyagana dhankooda ka hadlay inaan beelaha aan ka nimid sharaftooda iyo magacooda iyo maamulkooda iyo jiritaankooda aan midayno oo qalbiga gashanno oo daacad ka wada ahaano wixii labadan beelood ku heshiisay waa maqlayseen waan fariisannay wax walbana meelaha iska dhignay dadkii naga dambeeyey waa la hadalnay kuwii dabadda jiray kuwii gudaha jiray waa la hadalnay annagu wax walba waxaan annaga niiri dad waa iska saaray waxaan ka hormarinay gogoshaas sharafta badan oo walaalaheen noo dhigeen waxaan rabaa horta in la iska dhigo colaad inta meeshaan fadhida laba qof hadal ay isla ogaatay baa dadkoo dhan kala gaara intaanu hadal ay isla ogaatay ama waxay go'aansadeenna ummadoo dhan buu kala gaarayaa marka soomaalida halka isugu timid akhyaarta badan ee halka fadhiday nabad inaan go'aansanno ma ballan qaadnay ballan qaada ku shaqeeya wax ilaahay wato ma celi kartaan adinku laakiin ilaahay hortiis nabaddaas faafiya u taagnaada weligiin intaad joogtaan sidoo kale waxaa isna goobta ugu dambeyntii ka hadlay gudoomiyaha gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cirfo isagoona ka codsaday beesha caalamka iyo dowladda federaalk Soomaaliya inay taageero siiso shirka dib u heshiisiinta gobolada dhexe beelaheedu ay ku heshiinayaan isla markaasna ka socda degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud shirkakan madaxweynuhu wuxuu furay 10kii bishan wuxuuna noo ballan qaaday dowladuna inay gacan mugla ka geysan doonto hay'adaha ama beesha caalamkuna oo ugu baaqay iyana inay shirkan gacan siiyaan maantana bishu waa 18 xiriiradooda inaan weli ma hayno beesha caalamka waxay la tahay beesha caalamka inaan baaq u dirno halkan hawl aad iyo aad u baaxad leh ayaa ka socota qof ma wadi karo laba ma wadi karto beelaha heshiinaya beel ka midii ma wadi karto waxaan leenahay qaybtii aad ku lahaydeen shirkakan dib u heshiisiinta inaad ka soo baxdaan wakhti aan dheerayn dhammaan waxaa la eegayaa meelo badan oo lagu heshiiyey gacan xoogle ayaad ka geysateen marka waxaan leenahay beesha caalamka sida ugu dhaqsiyaha badan ugu degdegta badan ayaa shirkan looga sugayaa muddana waa la sugayey waxaan rajaynaynaa inaad hawshiinna gudataan wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii dowladdeenna federaalka iyana waxaan rajaynayaa inay wafdi u soo dirto shirkan dib u heshiisiinta siday goobjoog uga noqoto inkastoo annagu aan u matalayno dowladda haddana wasaaradda arrimaha gudaha waa laga maarmaan inay maaragtay u soo dirto wafdi la socda shirkan xaaladda uu marayo ayadoo weli uu socdo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolada dhexe ayaa waxaa soo ifbaxaya go'aamada ka soo baxaya kuwaasi oo ay ku heshiinayaan beelaha dega gobolada dhexe waxaana beelaha gobolada dhexe dega ay u heshiinayaan qayb iyadoona maalin kasta ay soo baxayso go'aamada labada beelood kuwaasi oo ay sheegaan inay ka tanaasuleen waxyaabihii soo maray tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Salaad Royal TV Dhuusamareeb kulan lagu taageerayay wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn wariyahana Khadar Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi noo soo diray kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee ururada haweenka magaalada Buuhoodle ayaa lagu taageeray xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke gaar ahaan wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha Marwo Sahra Maxamed Cali Samatar dadkii ka soo qayb galay kulanka taageerada ah ayaa si weyn u soo dhaweeyay xilka loo dhiibay wasiir Sahra Maxamed Cali Samatar iyagoo u dardarmay ummadda Soomaaliyeed inay si daacad ah oo cadaalad ku jirto ugu shaqeyso uguna duceeyay in la u fududeeyo xilka culus ee halkan waxaanu ka taageeraynaa dawladda federaalka
ومدحوينها وياهي حسن شيخ محمود رئيس الوزراء وياهي عمر عبد الرشيد علي شرماركي وحنو تاجرنا وسيرده سهرة محمد علي سمتر كلنا هاي كوجوليسو حلك الله قصاري الله كوفدوديو كنا جوليسو سيدي أبها نقا تيدتك أردني ما أنت حلك دكتور برارته تي لقى رئيستها نقولنا تي الله برارته لقى ضياع النقا إن شاء الله بإذن الله الكريم الله كوجوليو تاجرنا وسيرة صوماليا سيرة هوانك صوماليا سهرة محمد علي سمتر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وحنو هلكن كتاجرنا مروده قالقه وزيرة سهرة محمد علي سمتر وحنو لeenahay ilaahay xilkaaga in adeerha ku fududeeyo hadaanu nahay haweenka gobolka Cayn gaar ahaan qabiilka Tumaalaha برينا إن إلهي قوينا واحد كحيل كاجا كوف بها إن شاء الله بإذن الله أن نقطقفك الله تعمل لتشعلي هلي هذا يلهم مرة بعد نقول سعيلي أنت أسوأ بالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالك تغيرنا وسير كوين كفدار الصومالية سهرة محمد علي سمتر يد ما وسير حالنا إلهي حلكاجا أنت نوحيقنا يحقنا سارم بيهاي حلك الله ساري ربي وكوغو wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Sahra Maxamed Cali Samatar oo u dhalay sareeyo guud Maxamed Cali Samatar oo ahaa wasiirka difaaca Soomaaliya taliyihii guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kana mid ahaa shanta xubnood ee u sareeyay golihii sare ee kacaanka ayaa taageerada looga muujiyay magaalada Buuhoodle ku soo beegmaysa xilli dhawaan xilka wasaaraddaasi si rasmi ah loogu wareejiyay Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee Royal Buuhoodle maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay xukuno kala duwan ku fulisay dad eedeysanayaal ah oo maxkamadda la hor keenay raggan la hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada Bari Sanaa Karkaar Highland iyo Gardafuo ayaa lagu soo eedeeyay tahriiminta dadka iyo kamid ahaanshaha xarakada Al-Shabaab eedeysanayaasha ayaa tira ahaan dhan 9 iyadoo 7 kamidana lagu eedeeyay in ay kamid ahaayeen xarakada Al-Shabaab labada kalena lagu soo eedeeyay ridda habka qarsoon ee tahriiminta dadka qoraalo kala duwan oo maxkamadda hor keenay xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa sheegay in ay dambiyadoodu cad yihiin sharcigana la mariyo eedeysanayaashan dhageysiga xeer ilaalinta iyo dacwadda eedeysanayaasha kadib ayaa maxkamaddu waxay xukun ku riday 5 kamid ah raggii la sheegay inay kamid ahaayeen xarakada Al-Shabaab halka 2 kamid ana la sii daayay kadib markii maxkamaddu ay ku qanci weyday cadaymihii la hor keenay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol Cabdi Fataax Xaaji Aadan ayaa go'aanka maxkamadda soo jeediyay maxkamaddu markay dhageystay xafiiska xeer ilaalinta maxkamaddu markay dhageystay difaaca qareemada maxkamaddu markii ay dhageystay eedeysanayaasha iyo istifaacooda maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota aadan cali cabdi ina xabiibo xasan 19 jir ah ku dhashay degmada Afgooye maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 sano oo xariga cali nuunno cabdi cali ina yeeray cismaan 31 jir ah ku dhashay degmada Buurxakaba maxkamaddu waxay soo celisay xorriyadiisa cali nuur cali macallin taakow ina xaliimo xasan 19 jir ah ku dhashay degmada Waajid maxkamaddu waxay soo celisay xorriyadiisa أحمد عبد حسين محمد إنا آمنة عبد القادر 24 جرة كل شيء قبل كباي محكمة ضحك وحكمتي لبصرة عبد محمد حسن حسين إنا إيدي علي 29 جرة كل شيء تولد كرته محكمة ضحك وحكمتي لبصرة أحمد آدم عبد بشير إنا مركبة برا 26 جرة كل شيء قبل كباي محكمة ضحك وحكمتي لبصرة وحرقة علي أحمد نور علي إنا فيلي محمد 27 جرة كل شيء دقمت أفقوي محكمة ضحك وحكمتي لبصرة وحرقة لما أنت waxaa lagu soo eedeeyay labada maxkamadda ay sii deysay maahane inta kale inay tababar soo qaateen u socdeen buuraha laakiin aysan weli aysan gelin wax dagaal ah sidoo kale maxkamaddu waxay dhaarisay 2 eedeysane oo la sheegay in ay ka shaqeynayeen tahriiminta dadka dhanka badda ah kadib waa ay sii deysay sida go'aanka maxkamadda uu ku sheegay gudoomiyaha Cabdi Fataax Xaaji Aadan magaca Ilaahay inaan beedna maanta sheegay oo aan run sheegay waxa igu wallahi igu billahi igu tallahi inaan tahriib qaadin oo la xiran guuleed Shariif Cismaan Cabdalle ina Maryan Saalax maxkamaddu waxay soo celisay xorriyadiisa Saciid Cabdi Cali ina Xareedo Maxamed
maxkamadda waxay soo celisay xorriyadiisa Mustaf Saciid Mustaf Bisad maxkamadda waxay soo celisay xorriyada saddexdaas iyaga markay guuleen waxay kula xiraayeen kiiska dhinac bay kala xiraayeen oo laashka ba lagu soo eedeynayay ay iyagu wadeen caddayn waa la keeni waayey maxkamadda ku qanacday qiraalna waa la waayey maaha markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 5 gobol la horkeena ay deysanayaal ay ku rido xukumo kala duwan Naciima Sayid Cali Naciima degan telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Boosaaso hay-adda Ansaar International ayaa waxa ay deeq raashin u qaybisay dad barakacyaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisho sida uu warbixintan inoogu eegayo wariyaheena Aways Maxamuud Jilacow oo ku sugan magaaladaasi hay-adda Ansaar International oo fadhigeedu yahay dalka Jarmalka ayaa deeq raashin ah oo ka koobnayd digir, bur, saliid iyo galey maanta soo gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Hay-adda Ansaar International ayaa deeqdan u wakiilatay in dadka la gaarsiiyo mu'assasada Somalis Community. dadka deeqdan la gaarsiiyay ayaa u badnaa haween danyar ah oo ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Ali oo madax ka ah hay-adda Ansaar International oo dhashay dalka Jarmalka ayaa sheegay in hay-adda Ansaar International ay tahay hay'ad Islaam ah deeqdan ay ugu talagashay inay gaarsiiso dadka muslimiinta ah ee walaalahooda ah ee ka soo jeeda Soomaaliya. Und wir sind 10.000 Kilometer hierhin gekommen von Deutschland nach Somalia, nicht um die Masakin mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern um unsere geliebten Brüder und Schwestern mit Lebensmitteln zu versorgen. waxaan soo jarnay in ka badan 10,000 kilomitir uma imaan inaan dad masaakiin cunto u qaybino laakiin waxaan u nimid walaalaheena aan jecelnahay inaan aragno oo soo baranno ama salano Wir sind selber, wenn wir vor Allah stehen, jeder von uns von Ansar, wir sind selber Masakin und wenn ich hier stehe und ihr sitzt, schon schäme ich mich dafür, aber ich stehe hier, um noch mehr Spenden inshallah reinzuholen. Ilaahay hortiis kulligeen masaakiin baan nahay waana ka simannahay ma jeceli idinkana inaad dhulka fadhidaan anigana istaagnahay laakiin waxaan jeclahay inaan codka idin soo gaarsiiyo sidaas aanu istaaganahay maaha adinka inaan ka duwanahay Vielleicht wir sprechen eine andere Sprache oder wir haben eine andere Hautfarbe, aber wir haben alle La ilaha illallah und wir haben alle dieselbe Abrechnung in Yawm al-Qiyamah. waxaan leenahay midabyo kala duwan iyo luqado kala duwan ama afaf kala duwan laakiin kulligan waa simannahay waxaan leenahay la ilaha illallah muhammadur rasuulullah muslimiin ayaana wadanahay walaalo simana Bitte vergesst uns nicht in euren Dua, denn auch der Druck in Deutschland auf Muslime wird größer und wir versuchen inshallah euch in Zukunft noch mehr zu helfen. fadlan ducada aan noo soo ducaynaysaan ha ilaawina jarmal haddaan joogno muslimiin maadaama aan nahay dhibaato weyn baan qabnaa iyo ciriiri iyo haddaan rabno inaan dadka masaakiinta wax u soo ururino halkee u wadaan ma waxa u wadaan meel khaldan maxay tahay waxaas ayaa nalagu hayaa Dr. Xasan Xuseen Roble iyo Cabdicasiis Cabdulla Caynab oo labaduba wakiil uga ahaa hay-adda Ansaar International bixinta raashinkan ayaa saxaafadda u sheegay in si badqab ah loo qeybiyay raashinkaasi isla markaana la gaarsiiyay dadkii loogu talagalay anigoo ku hadlayo magaca shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan aniga waxaan ahay qareen Xasan Xuseen Roble waxaan hay-addan wakiil uga ahay Soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa Sheekh Cabdiraxmaan iyo Somalis Committee Cabdicasiis Datoorada noo soo abaabul mar walbana waa markii labaad ee aan imaanayna halkan waxaan u mahadcelinaynaa magaciina aan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay soo dhawaada walaalihiina Soomaaliya wali waa idin baahan tahay wixii loo qaban karana waa diyaar aan u nahay inaan idin la qabanno laba waxyaabood ayaa la rabaa in lagu daro oo aan annaga balaankeenna hadda ay tahay labada waxay kala yihiin dhul oo sisinta lagu beero inaan samayno ka labaadna waxa waaye oo dadka Soomaalida oo masaakiinta ay ka faa'iideystaan iyo dhul waxaan raadinaynaa haddana meel harqaanka lagu sameeyo halkaas oo gabdhaha ilmaha agoonta haystaan ama dadka fuqarada ay wax ka bartaan wixii ay soo saaraan macallin baa loo keenayaa wuxuu barayaa sida harqaanka loo sameeyo dharka ay sameeyaan waxaa loo qaadayaa Jarmalka dukaankeena lagu gadayaa wixii ka soo baxana si ummadda wax loogu qabto taas ayaa ilowna inaan sheegno hay-adda Ansaar International ayaa ah hay-ad gargaar oo Islaam ah fadhigeeduna yahay dalka Jarmalka waxa ayna ka shaqeysaa wadamo badan oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Suuriya waxaana maalmo ka hor ay hay-addan deeq gargaar ah gaarsiisay gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaana gobolladaasi ay kala yihiin Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Baay iyo Shabeellaha Hoose. Aways Maxamuud Jilacow, Royal TV, Muqdisho.
magaalada Cadaado ee xarunta maamul goboleedka Ximin iyo Xeeb ayaa laga soo sheegayaa in laga fuliyo howlgal lagu burburinayay dhismayaasha sharci darrada sida ay warbixintani ku faahfaahinayso wariyaheena Deeqa Abuukar oo ku sugan magaaladaasi. howlgalkani burburinta ayaa maanta si rasmi ah kaga bilowday gudaha magaalada Cadaado ee caasimadda maamul goboleedka Ximin iyo Xeeb, gaar ahaan fiyaalaha laamiga, waxaana si wadajir ah isaga kaashanaya maamulka degmada Cadaado iyo weliba ciidamada booliska maamul goboleedka Ximin iyo Xeeb. howlgalka burburinta inta uu socday ayaa waxaa la burburiyay goobo sharci darro ah, fiyaalaha laamiga iyo miisas ganacsi oo la qaaday. gudoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Ximin iyo Xeeb oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in burburintan ay timid xilli goobo horey maamulka u burburiyay dib loogu soo laabtay. horey aan uga jabinay ay qaarkood ku soo laabtay kuwaas oo caadaystay in markasta jidadka iyo deegaan iyo waxyaabo bilicda aan u wanaagsanayn ay keenaan meelaha fiyaalaha. sidaas daraadeed waxaan go'aansanay inaan nadiifino oo fileer ka dhigno jidka iyo inta u dhaxaysa guriga dhisan oo aanan ka ogolaan qofna inuu dhigo waxyaabaha sida dhagax oo kale, sida maryaha ay meelaha ku warwartaan oo kale, sida safiitooyinka oo kale, sida miisaska ay shaaha ku gataan oo kale ama kuwa biyaha ay ku waxyaabahaas oo dhan waad aragteen waa qaadnay. howlahaas waa sida u bilowday ilaa magaalada dhammaanteed aan nadiifinana sidaas ayaan ku wadaynaa. waa sidaas waa goob kastoo sharci darro waaye, ma ahan goobo hadda gooniyo timbara gooniyo, goob kasta oo nidaam darro u dhisan waa jabinaynaa. howlgalkani burburinta goobaha sharci darrada ee ku yaala gudaha magaalada Cadaado ee xarun goboleedka Ximin iyo Xeeb ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maamulka degmada hore shacabka digniino ugu diray, sidoo kalena uu diyaar garowga shirka maamul sameynta gobolada dhexe Cadaado laga dareemayo xilli kowda bishan soo socdo lagu wado in si rasmi ah gudaha magaalada Cadaado uga furmo shirka maamul sameynta gobolada dhexe. Deeqa Abuukar, Royal TV, magaalada Cadaado. magaalada Woodward oo ka tirsan gobolka Cayn ayaa la soo sheegayaa in laga hirgeliyay xarun soo saarta qalabka dhismaha iyo guryaha, sida uu warbixintan inoogu soo diray wariyaheena Zakariya Maxamed Ciise oo ku sugan magaaladaasi. garaash ku yaala magaalada Woodward oo ah isagu mid markaasi soo saara qalabaynta guryaha iyo waliba qurxintooda ayaa maanta soo bandhigay habka uu shaqeeyo, isagoona markaasi maamulaha garaashkan injineer Jaamac Maxamuud Axmed uu sheegay in qalabkan ay soo saaraan loo dooran jiray buu yiri markii hore gobolada Bari, Sool iyo waliba Togdheer. mashruucan waxaanu bilownay 2013 bishii labaad 12keedii, sidaas 2 sano baanu ku maranaa hadeerto. runtii mashruucan markii aanu bilownay dadku baahi badan ayay u qabeen deegaanka degmada Woodward iyo deegaankeeda, sida Boosaaso, Laascaanood, Buuhoodle, dhulkaas qalabkan loo dooran jiray. kadib markii aanu keenay oo baahidii aanu aragnay loo qabo deegaanku u qabo shaqadan iyo qalabkan iyo hawsha mashruucan, ayaanu ku keenay waana baahi la qabay oo runtii deegaanku maartay degmada iyo nawaaxigeedu qabeen. kadibna deegaanka laftigiisu si fiican ayuu noola shaqeeyay, qalabka iyo mataqaanaaye marka albaabada hadday tahay, haamaha taangiyada hadday tahay, gaadiidka farsamadiisa hadday tahay, qaybtan hadda aynu joogno workshopka oo mataqaana qaybta furniture-ka oo sariiraha iyo wixii lamida qalabka aynu hadda joognaa. dee waad aragtaa maasha Allah, waxa weeyaan waa la qaataa, alaabta si fiican baa loo iibsadaa ilaa Baliharac, Balicad, meesha liyo geed dheer, xidhxidh, banyaal, meesha la yiraahdo oo kale deegaanka 12 tuulo oo magaalada degmada hoos yimaada way qaataan, way nala shaqeeyaan. anaguna runtii si fiican baanu mataqaanaa baahidooda u daboolaa. marka dee maasha Allah, alxamdulillah, waxa weeye si fiican baanu mataqaanaa anaguna shaqada u haynaa, iyaguna deegaanka noola shaqeeya. injineer Jaamac ayaa ummadda u dhalatay degmada Woodward ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan horumarka, isla markaasina ay bannaan yihiin buu yiri fursado aad u qaaliya oo markaasi ganacsi. dhammaan dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama kuwa qurbaha jooga ha ahaadeen ama kuwa dalka jooga ha ahaadeen, khaasatan dadka qurbaha jooga, anoo Jaamac Maxamuud Axmed waxaan leeyahay dalkiina maal gashada, deegaankiina maal gashada,
hantidiina geliya waa dalkiinii hooyo waxa weeye qof kasta oo wax ku soo kordhiya ama fikir ku soo biiriya ama dhaqaale ku soo biiriya ama horumar ku soo biiriya waxa weeye dawaa loo baahan yahay dalkiiyo dadkiiba u baahan qofku intuu dal kale maal gashan lahaa waxaan leeyahay dalkiisa ha maal gashado mataqaanaaye mashaariic kala duwan ha la keeno khaasan dadka qurba joogta waxaan leeyahay walaalayaal dalkiinu waa inii baahan yahay waa lama huraan waxa weeye waa caws jilaal waa dalkiinii hooyo maal gashada oo waxa weeyaan hantidiina keena oo mashaariic iyo mataqaanaaye hadday warshado tahay iyo hadday mashaariic kala duwan tahay iyo hadday dhaqaaliyo maalgelin tahay waxaan leeyahay kula talin lahaa qof dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn dalkooda inay maal gashadaan oo waxa weeye hantida u huraan oo qofku intuu meel kale waxa weeye hantidiisa gelin lahaa uu mataqaanaa maal gashado وسكرية محمد عيسى سكرية وطني تلفزيون كعالمي رويال وودوود safiirada dalalka caalamka ee ku sugan magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa waxa ay ku qulqulayaan safaarada dalka Djibouti ay ku leedahay halkaasi iyaga oo markaasi ka tacsiinaya geeridii ku timid gudoomiyihii baarlamaanka ee dalka Djibouti sida uu warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira wariyaheena Cabdulcasiis Al-Cadaala safaarada dawladda Djibouti ay ku leedahay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa ka furmay buug diiwaanka tacsida ah ee gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti mudane Idris Arnaoud Ali oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti safiirada dawladaha dalalka caalamka u fadhiya magaalada Qaahira ayaa soo gaaray xarunta safaarada dawladda Djibouti ay ku leedahay magaalada Qaahira safiiradii soo gaaray xarunta safaarada Djibouti ee Qaahira waxa kamid ah safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya magaalada Qaahira safiirka dawladda South Africa Sacuudiga Morocco Kuuba iyo waliba dawladda Ethiopia iyo qaar kamid ah madaxda ururka jaamacadda Carabta uu kamid yahay wakiilka dawladda Masar u fadhiya jaamacadda Carabta waxaana xarunta safaarada Djibouti si weyn u soo gaaray madaxdaasi kala duwan waxaana soo dhaweynayay safiiradaas dalalka caalamka ka socday safiirka dawladda Djibouti u fadhiya Qaahira Danjira Muuse Maxamed Axmed ahna wakiilka joogtada ah ee jaamacadda Carabta u fadhiya Djibouti safaarada Djibouti ayaa maalmahan waxa ka furnaa buuga diiwaanka tacsida kaas oo looga tacsiyadeynayay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Djibouti Idris Arnaoud Ali oo ah rugcada taariikh weyn kula Afrika waxaana maanta safaarada laga dareemay mashquul aad u weyn oo dhanka tacsida ah xubno kamid ah safiiradii soo gaaray xarunta safaarada ayaa warbaahinta waxay kula hadleen xarunta safaarada waxayna tacsi u direen dhammaan ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday gudoomiyaha baarlamaanka iyo dawladda dalka Djibouti إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام waxaan halkan tacsi jiraan yar uga direeyaa dadka adduunka ku nool ummadan ugu jecelahay dadweynaha iyo madaxweynaha iyo shacabka iyo dawladda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo caa'iladii uu ka baxay walaalkay Idris Arnaoud Ali gudoomiyihii baarlamaanka dawladda Djibouti oo ahaa munaadil weyn oo ka qayb qaatay basamaadna wax la taaban karo kaga tagay dalka Djibouti geeridaas tiiraanyada leh ee ku timid walaalkeen Idris Arnaoud Ali oo ahaa madaxweynaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti waxaanu leenahay eebbe ha u naxariisto qoyskii uu ka baxayna sabri iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo wadar ahaan shacabka jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaanu leenahay sabri iyo iimaan eebbe ha idinka siiyo ugu dambeyn waxa isna warbaahinta la hadlay safiirka dawladda Djibouti u fadhiya magaalada Qaahira ahna wakiilka joogtada ah ee jaamacadda Carabta u fadhiya magaalada Qaahira Danjira Muuse Maxamed Axmed halkan waxaan u joognaa geeridii gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Idris Arnaoud Ali munaasabadan murugaysan waxaan tacsiid tiiraan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Geelle
iyo ehelkii ka hadhay marxuumka. Sidaan u garanayno Idris Arnawood faraaq weyn ayuu kaga tagay bahda siyaasadda Jabuuti, isagoo siyaasadda ku bilaabay isagoo ardaya Faransiisa, urur oo ka dhisay ardayda ay u dhan tahay reer Jabuuti. Marka waxaana eebbe uga rajaynaynaa inuu jannihiisa ka waraabiyo, ehelkiisina samir iyo imaan ilaahay inuu ka siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geerida gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti ayaa la sheegayaa inay ahayd mid kedis ah, waxaana ku soo booday xanuun. Allah u naxariistay Idris Arnaoud Cali ayaa aas qaran loogu sameeyay xarunta Jabuuti, iyadoo aaskiisa ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka iyo mas'uuliyiinta dawladda Jabuuti. Cabdilcaziz Sheekh Ibrahim Al-Adaala, Royal TV, safaaradda Jabuuti ee Qaahira. waagaag aad uu mahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa wariyaheena Saalim Salaad Doore oo noo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha iyo wararkii Britain. halka aad warkaasi kala socotaanna waa telefishinka Royal Studio-han ku leenahay magaalada London. wararka ka imaanaya magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka ayaa sheegaya in halkaasi uu ka bilaabmay shir 3 maalin soconaya oo looga hadlayo arrimaha khatarta argagixisnimada. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa shir 3 cisho soconaya oo looga hortagayo dhibaatada xagjirnimada waxa uu ka furay magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka. wakiilo ka socda in ka badan 60 dal oo ka kala socda caalamka ayaa shirkaasi ka qayb galaya, waxaana uu daba socday toogashooyinkii dhawaan ka dhacay dalalka Denmark, France, Australia iyo kororka kooxda dawladda Islaamiga ee bariga dhexe. waxay sidoo kale ka hadli doonaan afkaarta la xiriirta sidii looga hortagi lahaa xagjirnimada, iyadoo dalalka ay si weyn u wadaagayaan sirdoonka dhexdooda ah, isla markaana la iska kaashanayo sida looga hortagi karo kooxaha fallaagada argagixisada. tallaabadani ayaa waxa ay Mareykanku ku doonayaan in beesha caalamku ay iska kaashato sidii looga hortagi lahaa kooxaha khatarta ku ah amniga dalalka adduunyada. waaga daawadayaal, warkii waad kala socoteen telefishinka Royal Studio-han ku leenahay galbeedka magaalada London. intaas ayaan guud ahaan kusoo gabagabeynaya. anigoo Maxamed Yuusuf ayaa warkayda la socodsiinayay. anigii intii kale ee warkayga la qayb qaadatay dhammaantood isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.